qodobka 32 ee dastuurka xaqa helista macluumaadka dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay soo gudbinayso wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta dowladda Puntland qodobkan ayaa wax laga bedelay ereyga macluumaadka ayaa lagu bedelay xogta qodobka 32 ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya xaqa helista xogta qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo macluumaadka ay dowladdu hayso farqadan ayaa waxa lagu soo kordhiyay in heer kasta oo dowladeed ay bixiso xogta ay hayaan marka laga reebo xogta taabanaysa ammaanka qaranka qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo xogta ay hayaan hay'adaha dowladda heer kasta ay joogaan xukuumadda marka laga reebo xogta taabanaysa ammaanka qaranka qof kasta waxa uu xaq u leeyahay helitaanka macluumaadka ay cid kale hayso oo looga baahan yahay in lagu fuliyo ama lagu ilaaliyo xuquuq qof kale farqadan ayaa la tiray waxaana loo tiray iyadoo ay ku xadgudbayso xuquuq qof kale uu leeyahay qof iyo hay'ad midna kuma khasbi karo inuu bixiyo xog haddii aysan maxkamadi amrin farqadan cusub ayaa la soo kordhiyay sababtuna waxay tahay in laga hortagayo ku khasbida in qofku uu bixiyo xog uu hayo iyadoo awood loo isticmaalayo ilaa maxkamadii ka amarto baarlamaanka federaalku waa inuu soo saaraa sharci lagu hirgelinayo xaqa macluumaadka helidda farqadan ayaa sideeda loo qaatay balse waxaa loo qoray qaab qaanuuneed sharciga uu soo saarayo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu hirgelinayaa xaqa helista macluumaadka qodobka 33 ee dastuurka go'aan maamul oo cadaalad ah qodobkan waxba lagama bedelin qodobka 33 ee dastuurka go'aan maamul oo cadaalad ah qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in go'aamada ka soo fula maamulada ay hayaan kuwa ku dhisan sharci maangala go'aanka gaaristoodana loo maray hanaan cadaali ah farqadan waxaa loo qoray loona habeeyay qaab sharci ah iyadoo aan nuxurkeeda waxba laga bedelin qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in go'aamada ka soo baxa maamulka heerarka kala duwan ee hay'adaha dowladda ay ahaadaan kuwa ku dhisan sharciga sababaynayana go'aanka gaaristooda oo loo maray hanaan cadaali ah qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu racfaan ka qaato go'aamada ka soo baxa maamulka heerarka kala duwan ee hay'adaha dowladda isagoo horgeynaya maxkamad awood u leh farqadan ayaa mid cusub waxaana lagu soo kordhiyay farqada labaad oo tilmaamaysa in qofku uu ku qanci waayo go'aanka maamul uu dacwad u gudbin karo maxkamad awood u leh qodobka 34 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya xaqa dacwadda iyo isdifaaca qodobkan waxba lagama bedelin qodobka 34 ee dastuurka xaqa dacwadda iyo isdifaaca qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan ka furto maxkamad awood u leh farqadan sideeda ayaa loo qaatay qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan ka furto maxkamad awood u leh qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo garsoor madax bannaan caadil ah aan eex lahayn laguna qaadayo maxkamad dadweynuhu ay u furan yihiin laguna gelayo waqti macquul ah ama golihii kale ee awood go'aan gaaris u leh arrin kastoo ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka madaniga maya faldambiyeed kasta oo kale oo lagu soo oogay ciqaabna lagu mutaysanayo farqadan waxaa loo qoray hab qoris casri ah iyadoo aysan waxba laga bedelin nuxurka waxaana la soo jeediyey in la tiro xarfaha A iyo B waxaa kaloo la bedelay ereyga waqti macquul ah laguna bedelay muddo ku xadidan shuruucda qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu helo garsoor madax bannaan cadaalad ku dhisan aan eex lahayn laguna qaado maxkamad dadweynaha u furan laguna galo muddada ku xadidan shuruucda gudaheeda qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco dacwad uu danaynayo heer darajo kasta oo ay tahayba farqadan sideeda ayaa loo qaatay qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco dacwad kasta oo lagu soo oogo
heer iyo darajo kasta oo ay taagan tahayba. 4 dowladdu waxa ay kafaalo qaadaysaa dadkaan awood dhaqaale lahayn inay difaac lacag la'aan helaan. waxaa la isku biiriyey farqadaha 4 iyo 5 ee qodobka maadaama ay isku nuxur yihiin. 4 kaalmo qaanuuneed oo lacag la'aan ayaa dowladdu siinaysaa kuwa aan awood u lahayn bixinta kharashka dacwadda maxkamadda, waxaana ay bixinayaan xushmadda qareenka marka ay dacwaddu ku raadinayaan danta guud. 5 dowladdu waxay damaanad qaadaysaa difaaca lacag la'aan shakhsiyaadka bulshooyinka marka ay si sharci ah ugu raadinayaan danta guud. farqadan ayaa lagu daray farqada 4 ee dastuurka. sharci gaar ah ayaa lagu cadaynayaa xuquuqda dacwadda iyo gargaarka sharciga. farqadan cusub ayaa mid muhiim ah in laga helo xeerka qeexaya xuquuqda dacwadaha. farqadan cusub waxaa muhiim ah in la helo xeer qeexaya xuquuqda dacwadda. qodobka 35 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya xuquuqda eedeysanaha. qodobkan waxba lagama bedelin. qodobka 35 ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya xuquuqda eedeysanaha. 1 eedeysanuhu wuxuu la mid yahay qof beri ah oo aan dambi gelin ilaa maxkamadii si kaba dambaysa ay ugu cadayso dambiga loo haysto. farqadan ayaa wax laga bedelay, waxaana kelmadda beri ah lagu bedelay qof aan dambi gelin. 1 eedeysanuhu wuxuu la mid yahay qof aan dambi gelin ilaa maxkamad awood leh ay si kama dambaysa ugu cadayso dambiga loo haysto. 2 qof kasta oo xorriyadiisa shakhsiga ah laga qaado waa in isla markiiba la ogeysiiyaa dambiga lagu tuhunsan yahay, loona sheegaa af uu ku garanayo. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 2 qof kasta oo xorriyadiisa shakhsiga ah laga qaado waa in isla markiiba la ogeysiiyaa dambiga lagu tuhunsan yahay, loona sheegaa af uu ku garanayo. 3 qof kasta oo xorriyadiisa shakhsiga laga qaado waa in xaaladiisa la gaarsiiyaa qoyskiisa ama eheladiisa. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 3 qof kasta oo xorriyadiisa shakhsiga laga qaado waa in xaaladiisa la ogeysiiyaa qoyskiisa ama eheladiisa. 4 qofna laguma qasbi karo dambi qirasho xukunkiisa, saldhigna loogama dhigi karo qiraal lagu khasbay. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 4 qofna laguma khasbi karo dambi qirasho xukunkiisa, saldhigna loogama dhigi karo qiraal lagu khasbay. 5 eedeysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco maxkamadda awoodda u leh horteeda, lana yimaado caddayn iskaga rogayo dambiga lagu soo ogay. farqadan ayaa laga soo raray qodobka 9 ee dastuurka ee isla qodobkan, waxaana ay noqotay farqada 5 ee soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka. 6 qof kastoo la xiraa waxa uu xaq u leeyahay in 48 saac gudahood lagu horgeeyo maxkamad awood u leh. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 6 qof kastoo la xiraa waxa uu xaq u leeyahay in 48 saac gudahood lagu horgeeyo maxkamad awood u leh. 7 eedeysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu goobjoog ka ahaado dacwadiisa. farqadan waxaa laga soo raray farqada 8 ee dastuurka. 8 qof kastoo la xiraa waxa uu xaq u leeyahay inuu qabsado qareen difaaca haddii uusan awood u lahaynna ay xukuumaddu u qabato. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 8 qof kastoo la xiraa waxa uu xaq u leeyahay inuu qabsado qareen difaaca haddii uusan awood u lahaynna ay xukuumaddu u qabato. 9 eedeysanuhu waxa uu xaq u leeyahay tarjumaad haddii uusan garanayn luuqadda maxkamadda ay adeegsanayso. farqadan ayaa waxaa laga soo raray farqada 10 ee dastuurka. 10 qof kasta oo maxkamad lagu soo taagay tuhun faldambiyeed waxaa xaq uu u leeyahay garsoor cadaali ah. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 10 qof kasta oo maxkamad lagu soo taagay tuhun faldambi ciqaabeed waxa uu xaq u leeyahay garsoor cadaali ah. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 10 qof kasta oo maxkamad lagu soo taagay tuhun faldambi ciqaabeed waxa uu xaq u leeyahay garsoor cadaali ah. 11 qofna laguma soo oogi karo amar la'aan dambi si kama dambaysa loogumana xukumi karo ama looma sii dayn karo si sharciga waafaqsan. farqadan cusub sababta farqadan loogu soo kordhiyey ayaa ah dhaqangelinta mabda'a guud ee qaanuunka ciqaabta, taasi oo ah inaan qofna lagu ciqaabi karin
laba jeer hal faldambi. 8 eedeysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu goobjoog ka ahaado dacwadiisa. farqadan waxaa loo raray farqada 10aad ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka. 12 qofna looma ciqaabi karo faldambiyeed uu galay qof kale. farqadan waxaa laga soo raray farqada 12aad ee asalka dastuurka iyadoo loo habeeyey hab qaanuuneed. 9 eedeysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu iska difaaco cadeymaha la soo hordhigay ee lidka ku ah. farqadan waxaa loo raray farqada 5aad ee isla qodobka soo jeedinta dastuurka waxaana ay noqotay farqada 5aad ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka. 13 qofna looma ciqaabi karo fal markii uu ku kacayay uusan sharcigu dembi u aqoonsanayn haddii uusan ahayn dembi ka soo horjeeda bini'aadantinimada laguna cadeeyey qawaaniinta caalamiga. farqadan waxaa laga soo raray farqada 13aad ee asalka dastuurka ee isla qodobkan. 10 eedeysanaha waxa uu xaq u leeyahay inuu helo turjumaan haddii uusan garanayn afka maxkamadda ay isticmaalayso. farqadan waxaa loo raray farqada 9aad ee isla qodobka soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka. 14 eedeysanuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu racfaan ka qaato maxkamad ka sarreysa tan xukunka gaartay haddii uusan ku qancin xukunka maxkamadda. farqadan ayaa mid cusub. sababta farqadan cusub loogu soo kordhiyay ayaa ah in dastuurku lagu adkeeyo xaqa racfaanka qaadashada ee heerarka kala duwan ee maxkamadaha. 15 eedeysanaha laguma hayn karo goob aan sharcigu bannayn waana in loo ogolaado booqashada ehelkiisa, takhtarkiisa iyo qareenkiisa. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. farqada 15aad eedeysanaha laguma hayn karo goob aan sharcigu bannayn waana in loo ogolaado booqashada ehelkiisa, takhtarkiisa iyo qareenkiisa. mas-uuliyadda ciqaabtu waa shakhsi. qofna looma ciqaabi karo faldambiyeed uu galay qof kale. farqadan waxaa loo raray farqada 12aad ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka iyadoo loo habeeyey hab qaanuuneed lana tirtiray kelmadda mas-uuliyadda. ciqaabtu waa shakhsi. qodobka 36aad ee dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya isu celinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha. qodobkan waxba lagama bedelin. isu celinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaa loo ogolaan karaa oo kaliya si waafaqsan sharciga iyo inuu jiro heshiis isu celin oo ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya celinta eedeysanaha ama dambiilaha. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 1 isu celinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaa loo ogolaan karaa oo kaliya si waafaqsan sharciga iyo inuu jiro heshiis isu celin oo ay dowladda federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya celinta eedeysanaha ama dambiilaha. 2 isu celinta eedeysanaha iyo dambiilaha waa inay ahaataa mid waafaqsan dhaqanka iyo qaanuunka caalamiga waana in baarlamaanka federaalka soo saaraa sharci lagu maamulayo isu celinta dambiilayaasha. farqadan waxaa loo qoray hab qaanuuneed. isu celinta eedeysanaha iyo dambiilaha waa inay ku dhisnaataa heshiis ay wada galeen laba dowladood taasoo waafaqsan dhaqanka iyo qaanuunka dawliga iyo inay ku salaysnaato sharci uu soo saaray baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. qodobka 37aad ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya qaxootiga iyo magangelyada. qodobkan waxba lagama bedelin. qodobka 37aad ee dastuurka qaxootiga iyo magangelyada. qof kasta oo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku soo gala qaxootinimo waxa uu xaq u leeyahay inaan dib loogu celin ama aan loo qaadin dal kale haddii ay jirto cabsi muuqata inuu la kulmayo ciqaab. farqadan waxaa loo habeeyey hab qaanuuneed sharci ah iyadoo la kala saaray magangelyadoon iyo qaxootinimada. 1 qof kasta oo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku soo gala magangelyadoon ama loo aqoonsado qaxooti waxa uu xaq u leeyahay inaan dib loogu celin ama aan loo qaadin dal kale haddii ay jirto cabsi muuqata oo ah inuu la kulmayo ciqaab ama khatar lidi ku ah. 2 baarlamaanka federaalka ahi waa inuu soo saaraa sharci waafaqsan qaanuunka caalamiga
kaas oo nidaaminaya qaxootiga ama magangelyadoonka. farqadan waxaa loo qoray hab ka fudud oo la fahmi karo iyadoo laga saaray qaanuunka caalamiga. 2. baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waa inuu soo saaraa sharci nidaaminaya qaxootiga iyo magangelyadoonka. qodobka 38 ee dastuurka xadidida xuquuqda. qodobkan waxba lagama bedelin. qodobka 38 ee dastuurka xadidida xuquuqda. xuquuqda lagu sheegay cutubkan waxaa xadidi kara sharciga haddii sharcigaasi uusan si gaara u bartilmaameedsanayn shakhsiyaad ama kooxo. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 1. xuquuqda lagu sheegay cutubkan waxaa xadidi kara sharciga haddii sharcigaasi uusan si gaara u bartilmaameedsanayn shakhsiyaad ama kooxo. 2. xuquuqdan waxaa xadidi kara sharciga ama waxaaba si gaara loogu asteeyey cutubkan waxaase haddii xadididaasi ay tahay mid si cad oo maangala ama kuwo la aqbali karo oo waafaqsan qiyamka lagu qeexay dastuurka. farqadan sideeda ayaa loo qaatay. 2. xuquuqdan waxaa xadidi kara sharciga ama waxaaba si gaara loogu asteeyey cutubkan waxaase haddii xadididaasi ay tahay mid si cad oo maangal ah ama kuwo la aqbali karo oo waafaqsan qiyamka lagu qeexay dastuurka.